Maalinta beriya gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa ka dhacaya bannaanbax aad u xooggan oo dadka shacabka ay ku muujinayaan dareenkooda iyo sidoo kale diidmada damaca gurcan ee Israa'iil ay ku aqoonsatay qayb ka mid ah Soomaaliya, si gaar ah Somaliland. Shacab aad u fara badan ayaa ka soo horjeestay go'aanka iyo sidoo kale damaca gurcan ee Israa'iil ay ku aqoonsatay Somaliland, iyadoo isla markaana Somaliland ay u aqoonsatay dowlad madax bannaan. Maanta magaalooyinka qaar waxaa ka dhacay bannaanbaxyo aad u xooggan, iyadoo isla markaana shacabka ay markaasi cad u sheegeen inay kasoo horjeedaan damaca gurcan ee Israa'iil ay ku aqoonsatay Somaliland dowlad madax bannaan. Beledweyne maalinta beri ayaana la qorsheeyay in markaa bannaanbaxyadii maanta ka dhacay mid ka weyn uu ka dhaco gudaha magaalada Beledweyne, iyadoo isla markaana shacabku ay sheegeen inay ka qayb qaadan doonaan bannaanbaxa, sidoo kalena ay ku muujinayaan dareenkooda iyo diidmada damaca gurcan ee Israa'iil ay ku aqoonsatay dowlad madax bannaan.